باسبور سومالي ما وضعتي مقادلك إيماني ما كسوقش قف باسبور سومالي أو فيزا سوق هذا اللي يرمى جرا ورويلي أو أما قبل يا ودا باسبور أجنبي أو ذات الصومالي ما هي إسعدي صومالي أنا تاي صومالي هو مذب مذول مياه أفك الصومالي إن لغة هذا مياه ما قا أنت فردو أف إنجليزي أف فرنسيسي أف سواحلي أف محنكور هذا أمحاري أف عربي كل كوادش بابور بلد كما مري كراه أن تارجلهين هذو مرنا وبابور أن توجا سوما أو بلاي كشقين يا أمان لقبنا يا مركل أركبه قفك الصومالي تارجل له يلا قفن تارجلهين أو نمبر لهين ما أنت هتطلعت إلى ما أنت هتدمت أنت كدحله نمبر كاسد أكبر صعود هذا جامعة آدي هذا سكول آدي هذا بنك محوه حساب كفرنيسو هذا باسبور دونيسو هذا شرط محن كره شتي جنعسي هذا دونيسو هذا محوه واحد كاستسمي نمبر كاس وأنا كل صعودة هذا النمبر كاس وذنن سومالي ميدا سؤاش إيمان دونتو سومالي ميد إسعدي سومالي أنا تاي سومالي هو مذب مذول مياه أفك سومالي إن لغة هذا مياه ما قا أنت فردو أف إنجليزي أف فرنسيسي أف سواحلي أف محنكور هذا أمحاري أف عربي كل كوادش قفك الصومالي أو حا صومالي كتاي أقونسي ها صومالي أمريكا ودتي بنك دحي الصومالية وزارة إسكارسينتي تكنولوجيا ده محنكور هذا وزارة المالية ده وزارة الجنعسية دمان هي أداة حكومة ده هرنا وأوشان هذا نحاول هلك عن قعدنا إنا نفرني أنا نفرينه قفان أي دي سومالي أو وضنين نيرة أنت تجا إسكسور رجستر قرية أنك سوق هذا أي دي مدة كوبنا هذا اللي بحي مدة كلو لبحي كربها وحي كدم بيا سومالي ميد أنت كتمد على الغداء والبويدينا بنكي قف أكاون أفر عن وضنين كاركن أو محوها أقونسده شركة دي تلفن سيسا قف آنان وذنين كارك أقونسيغا وزارة دا جنعسيغا هداي لايسن سوسيسا قف آن وذنين كارك أقونسيغا وزارة دا جاديد هداي أي بطانتو أما درايفين لايسنس أي سوسيسا قف آن وذنين كارك أقونسيغا ودنبي هي أدي كمسؤول كأهد سميسي هذا برايفت تاي هذا الدولة تاي أي دنبي كوجليسو مدة لقبتي مدة صوحيسو وحارب عاو هالكا إنه قدر وقلدي محنكر هذا نيرة عاو سؤالا سوي دي كجواب هلا نقفك كاركن ولا ما كريا باسبورن ولا ما كريا ميا كاركن ولا ما كرا 10 مليون oo qof dad ka badan dhowr iyo 10 milyan oo qof baasaboor haysto oo siday ku heleen ilaahay og yahay waa la saxa kaarkaad soo qaadanay niira dalka meelo aad iyo aad u badanay hadda ay ku leedahay dhowr iyo 30 meelood bay tiri yaa ay ku leedahay xarumo kaarka laga bixiyo waana la sii ballaarina baabuurna mobile ah la sameeyna oo meel kasta tago oo maxaa dadka kaarka siiya doona kaarka haddaahina doona kaarka maalina ay ma doonto baabuur aadan raaci karin diyaar iska dhaaf warkeed baabuur aadan raaci karin kaar hadaadan wadan jidka lagu dajiyo lagu yiraahdo adiga xag istaag ina Soomaali tahay in kala lagu soo bara daaday maalintaas way soo socotaa way imaanay hay'adaha dawladda iyo hay'adaha ganacsiga dhammaan qofkii arintaas fududeeyahay inaanay dhaqan gelin ha ogaado waa dambiile qaran argagixisada wadada u fududeeyay tuuga dhumanayo u fududeeyay ajnabiga banaanka ka yimaado dalka sharci darrada ku joogo u fududeeya tahay garawaagaad fududeysay dalkan garawaa in laga waayaan rabnaa qof kasta qof la yaqaan inuu noqdo qof la garan karo la yaqaan inuu noqdaan rabnaa hay'adaha ku dhawaaqay barnaamijkaas ee hirgeliyay waa u mahadcelinayna dadka sida hadda television ku xigta sheegay hay'adana noo sheegtay half a million aad u yartahay
20 مليون oo Soomaali aan rabnaa inay kaarka qaataan 20 مليون oo Soomaali ah ayaan rabnaa aqoonka Soomaaliyeed waxa kale oo dhinta bariyahan oo maxaan ku yiraahdaa aad dadka iyo media iyo meelo badan looga hadalhayaa arinta e-visa dalkan sidiisaba digital u socdaa wax walba inay digital noqdaan u socdaa oo gacmaha iyo buugga la qorayo iyo baasada gacmaha lagu kala qaadanayo waxaan oo dhan in laga guuro digital u noqdaan rabnaa waxaan maqlayaa dhalinyaro badan oo dacwoonayso leh aniga Soomaaliyan ay dalka markaan imidna visa muxuu ahay lacagtiisa la igu soo rogay passport Soomaali ma wadatay mugaa dalka imaanaysa ma ku soo gashay qof passport Soomaali ah wato oo visa soo qaadan la yiri ma jira war wiilyaw ama gabar yaw hada passport ajnabi ah wadatay Soomaali ma ahid aqoonsiyaas lagu noqdaa Soomaali muuqaal lagu noqday af Soomaali inaad ku hadashid war passportkaaga Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Swedishka iyo Jarmalka ay waxa hayso dalkan dual citizen waa laga ogolaadaa leeyahay laakiin hadaa ku safraysid passportka dalkaas visa soo qaadanay yay ka khaldamay passportkaaga haysa daarto laakiin dalka daa'imaan passport Soomaali qaado ku imaaw adoo passport Soomaali taagana bil visa soo qaada hal lagu yiraahdo laakiin passport ajnabi aan wataa macnaheedu waa maxay passport ajnabi aan wataa aan ku safraa dalkan Soomaaliya la yiraa passport Soomaali uu leeyahay ku imaaw passportkaaga Soomaaliga ah waayo passport Soomaaliga uga faanay oo aadan u qaadanayn markuu meel kasta yaalo oo maxaan ku raday safaarad kasta uu yaalo oo gobol kasta uu yaalo meel kasta yaalo maxaadan u qaadanayn haddana aad soo taagan tahay in adeegaaga media inta timaad aad qaylinaysa aad leedahay aniga waa muxuu ahay xuquuqdaada meesha looga dhacay waa tee yaa tahay adiga who are you war Soomaali haddaa tahay walaalow gacaliya walaalay gacaliso passport Soomaaliya dalkan ku soo gal haddii visa lagu weydiiyo ku weydiiyo waa dambiile oo dawladdu talaabo laga qaadaya laakiin passport qurux badan oo ajnabi ah oo maxaan ku raadayay intaad soo qaadatay dalka timaad si visa la weydiinay oo mid ka cad oo isla passportka aad wadatid wato iyo adiga maxaa kala duwantiin laba qofood oo socoto oo nool oo passport isku mid ah wato waa madoobay af Soomaaligan ku hadlaa aniga visa mali kan af Soomaali ma yaqaan ama waa cad yahay visa laga qaadaa miya aw aqligi iyo maxaan ku raxiski deganaanti laguguma haysto inaad passport ajnabi ah haysid dambi ma aha laguguma haysto war Soomaaliya dalkan Soomaaliya la yiraahdo dadka Soomaalida ah iska leh walaalka diaspora iyo walaasha diaspora oo dalka muga imaanaysa Soomaali noqo arma passport dual citizen tahay maano passport Soomaaliga inta qaadatid ama meel kale ku gali kartaa adoo visa wadanin dalka aad passportkiisa haysatid passport Soomaaliya ma ku gali kartaa adoo visa aan haysanin dalkaana laguma imaan karo passport ajnabi ah oo dawlad kale ay leedahay oo aan visa haysanin dawladda Soomaaliya qodob kale dawladda Soomaaliya waxay ku guuleysay maanta systemiska caalamiga inay ka qayb gasho oo dal passport falsa laga qaatay ama passport laga dhacay system uu galiyaa jiro oo airportka Soomaaliya maanta daa ka soo degtid passportkaaga la geliyo la arkaa passportka la soo xaday waay ama passport falsa waay hore laga soo qabanayo war tartiib waa soconaa laakiin waxa aan wanaaga aan gaarina waa inaan dhadhansanaa oo nala macaada oon ogolaana oon ku faraxsanaana laakiin haddaan caqabad ka dhigno oo ceeb ka dhigno oo caay ka dhigno muxuu ahay horumarkii see noqonayna dalkan meel fiican oo maanta joogaa meel aad iyo aad u wanaagsan rajo aad iyo aad u fiicanna uu leeyahay